السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبدالقادر تباد كسودو مقالكن فضلا هديات ku cusub tahay channelka subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada aan mar walba soo geliyo. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa ama aan ku baran doonaa how to convert number to percentage. Qaabka number ama values caadi ah loogu bedelo si percentage ah ama tirada boqolleyda. Sida ku muuqata xisaabtan waxa weeyaan waa number caadi ah. Values kan waa 71 79 85 59 waa number iska caadi ah. Maybe qof baa kuu soo diray ama meel baad ka soo extract garaysay. Waxaan doonaynaa numberadan inaan u bedelno percentage. Nidaamyo badan loo sameyn karaa, laakiin casharkan waxaan ku baran doonaa laba qaab. Qaabka koobaad waxaan leenahay waxaan soo qaadanaynaa 100 boqol ayaan halkaa ku qoranaynaa. kadib 100 ka waa select garaynaysaa, waa copy garaynayna, marka control C baan isticmaalaynaa. kadib values kaaga hore ama original range of sales ki ayaan imaanaynaa. kadib waan highlight garaynayna. marka saan u select garayno waxaan leenahay right click markaa dhahdo kadib waxaad sii tagaysaa best special markaa ku dhufato waxaan rabnaa marka tiradan ama values kan aan haysano inaan u qaybina 100. marka halkan ayaan imaanaynaa qaybtan hoose ee operation, kadibna waxaan dooranaynaa divide halka ay ku qoran tahay, kadibna okay ayaan leenahay. sida ku muuqata automatically range of values ki aan haystay waxay isu bedeleen isla markiiba decimal waxa la yiraahdo decimal points ayay noqdeen. marka inta kadib halkan ayaad imaanaysaa ayuu ku select garaysan, calaamada kore ee percentage ka ayaad ku dhufanaysaa. wow, immediately my range of values ki waxay isku bedeleen percentage ayay isku bedeleen, oo nambaradii marka hore caadiga iska ahaa waxay noqdeen percentage. qaabka waa midka koobaad, laakiin sida aragteen waxaan sameynay wuxuu ahaa process aan marnay oo two steps ayaan marnay. marka hore inaan 100 kan copy dhahno, kadibna aan select garayno, aan dhahno divide, kadibna aan percentage ka ku sii dhufano. qaabka labaad ee runtii tiradan aad uga bedeli kartid percentage waxa weeyaan waxaan leenahay waxaan soo qaadanaynaa 1% ayaan halkaa ku qoranaynaa. 1% markaan ku qorano control C ayaan leenahay, waan copy garaynaynaa. then original key ama datadii hore oo caadiga noo taalay ayaan select garaynaynaa. kadib waxaan leenahay right click best special ayaan tagaynaa. this time round waxaan select garaynaynaa ama aan qaadanaynaa. waxaan leenahay waxaan rabnaa inaan 1% kan ku dhufano original range of datadii halkan noogu jirtay. values kaas rabnaa inaan ku dhufano 1%. waxaan leenahay multiply, qaybta hoose operation ka imaanayna, kadibna multiply ayaan ka dooranaynaa. kadib waxaan leenahay okay. sidaad aragtaan values ki waxay isu bedeleen percentage immediately. taana waxa noo fududeeyay 1% kaas aan isticmaalnay oo aan ku dhufanay. sida aad ogtihiin numberka 1% waxa la yiraahdaa waa constant, wixii lagu dhufta isma bedelaan, laakiin waxa bedeshay oo calaamadaas noogu daray oo ah percentage ka. marka labada qaab ugu fudud data aad haysatid ama values meel ku yaala oo caadi ah inaad percentage u bedeshid. waliba waxaan isleeyahay processka dambe oo ah 1% ka isticmaalaysid inay runtii aad kugu fududeynayso. marka datadan hadda anigu waan soo qaatay, tusaale ahaan soo qaatay waa mid kooban, laakiin waxaa laga yaabaa boqolaal iyo intaasoo kun oo data inay kugu jirto. marka isla processka baad raacaysaa si xisaabtaas aad ugu bedeshid ama values kaas aad ugu bedeshid percentage. casharkan intaas ayaan kusoo koobaynaa. fadlan haddii aad ka heshay videoga like saar, sidoo kalena maaragtay asxaabtaada kale la wadaag.